السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا ود السلام يا ملك استاجوبتان على الدوريدا الصوماليين حد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا هو في عنا الحمد لله وحرجينا في عنتي بدونكنا ملك استاجوبتان والناول كوكي ما أنتم ما كرنيسو أصحاب ضمبار وصبرتاي أصحاب توا سلامنا كسر دواد شنكينا لنا هاي انتظر كرنا واسكششكينا marka insha Allah inta subscribe ka noo ay inta like ka noo ay inta comment ka noo qorto quruxda badan ba kulligeen baa idinka mahad celinaya inta deena daawato dhamaantii aad baan ku mahadnaqaynaa insha Allah bilmillah kareem ana waa fiican alxamdulillah asxaabay bariyaha kan waxay naga yaabiye Soomaaliya ka dhacay oo dacalada dunida ka dhacay oo waxay ka dhacayaan Soomaalida sidee waddankeenu burburay oo dagaal inooga daaleen oo dagaalka weli gacmaha loogula jiro ya wax badan baa Soomaaliya meel kasta adduunka ay ka tageen ku dhacaya maanta qisada ugu daran ee waxaan ka badan leh waxa weeye Saudi Arabia qof kasta waa ogyahay adduunyada Ilaahay adduunka oo dhan caalamka og Soomaalida ay caalamka og wax wuxuu qabtay ma jiraan dadkii qabteen ama bila sharci ha noqdaan ma sharci yeelan dadka qaar badan oo bila sharci qaarna hadda door sharci bay leeyihiin wadankooda dadkii tagay ee Soomaalida ahaa inta la xidhay oo jeelkiisa looga buuxiyay ayaa inta la xidhay waxa lagu xukumay dil toogasho wala wada xukumo subhanallah Soomaalida adduunka ugu tirada badnayd bahal mar inta la xukumo qorta laga wada jaraya ya wallahi waa arin mucjisa wana adduunyada oo dhan baan ka dhicin nolosheedana ayna maqan yani laba qof la garay saddex la garay waa dawladda adduunka gal iyo islaam ugu badan baan oran karnaa 200 oo qof oo Soomaaliya hal mar qorta ka jaraysa hay labada boqol ee qof ee Soomaalida qof walba waxa lagu yeedeeyay laakiin waxay ku wada yeedeysan yihiin qarna tahriib oo dooya laga qabtay dooyaha drugs ka ku jira liya xashishad qaar badanna waxyaalo kale iyo sine iyo waxun bay ugu sheegayaan laakiin ay waxay ga siyaabsay gabdhaha ku jira labada boqol ee qof waxa ku jira gabdhaha kan niman Carbeed baa kufsaday ma garanaysaa sharciga baa siinaya nimankii waa la sii daayay oo lama xukumin Carabta aha haddana gabdhihii Soomaaliyeed baa la xukumo dil toogasho lagu xukumo 17 gabdhood baa ku jira dadka la xukumayna waa wada daayir intooda badan wax waaweyn waa wax yar wax waaweyn waa wax yar intooda badan waa dhalinyaro daayira waa arintii ugu xanuunka iyo yaabka badnayd ee fajaca badnayd ana waxaan ka yaabay ilaa gabdhaha Soomaalida wax ma kufsaneen waxa wax kufsaday niman Sacuudiyaan hay sharcigoodu wuxuu siiyay nimanka Sacuudiyaanka ah in la fasaxo hay gabdhaha Soomaalida la xukumo oo la dilo qorta laga gooyo marka ma gabdhaha wax kufsaday waa yahay gabdhaha Soomaalida ragga Carabta meeqa kufsaday iyaga kufsaday nimanka kufsaday gabdhaha Soomaalida waa gabdha sharaf badan saan xanuun kufsadaa عالم قبله كان على قبله حفصة لكن كوينا كمان عذين تبغى ما أنا رقدة ولا شيء قال لكن ده من صار مفهمي سن والله هو أرجح ياو يفتح بيقول نقط مركليين هذه الصوماليين حرمة شرموطة مركليين وناقهني وناقة الصوماليين وشرموطين هذه الصوماليين شرموطة مركليين وقبلها Soomaalida oo kulligood qoorta laga wada gooyay aaway ragay kufsaday ma la isku weydiin waxay arkayaan dadkeena daciif ah dad daciif ah baynu nahay dad sidii la doon laga yeelo baynu nahay dad Ilaahay u maqayo aadna u san maqadan baynu nahay dal waxaynu nahay bilaad dawladda oo dawladda burburtay ya gabdhaha kan qaar baa ku jira la yiri maartay Xasan Sheekh doorkii hore uu qabtay madaxweynenimada berigii hore gabdhaha jiray boqol oo la Saudi Arabia shaqo laga siinay gabdhihii kulli waa wada gurgurac waa wada qaar baa ku jira halkan gabdhihii qaar baa halkan ku jira ma badna laakiin gabdhihii mar hore kulli laga taqalus hay ma waxa la arkay caalam dhan
oo dawlad isku sheegaya oo Soomaali matalaya oo haweenkiis intuu diyaarad ku guray orda shaqo taga rag baa la shaqo geeya ama haween baa la shaqo geeya gorma haweenka guriga lagu qarin jiray oo sharciga islaamka haday ku dhaqmayaan Soomaali ama Carabi hablaha waa ku ilaastiri jiray guriga joog jiray Ilaahay ma oran gabdhaha shaqo taga wiilasha fadhiya lama oranin fahmaysaa gabdhihii Ilaahay u soo rogay gurigooda iyo reerkooda haystaan oo barwooyin noqdaan oo islaamnimo ay ku dhaqmaan ayaa la ishaarac u baxo shaqo taga haye dawlad u si raacayso oo ka daba tagayso oo wuxuu raadinayso oo meel geynayso oo xitaa inta laga boqo wixii ku dhaca ka daba tagayso ma inaan ahayn hadeerna ma nihinba labada boqol ee qof ee qoorta laga jarayo wuxuu hadlama lihin dawladii Soomaaliya waa ka gaabsatay dadkan hadlaya waxay leeyihiin ka soo hadlaya oo ah wariyaasha ama shacabka Soomaaliyeed ku nool Saudi Arabia waxay leeyihiin dawladda Soomaaliya waa la socodsiiyay safaaradda Soomaaliya waa la socodsiiyay waxana inoo way qaban hay dawladdeedu waa dawlad jilicsan oo maaragtay aad u liidata weeye khaliijka imaaraadka markay nagu meel gaadheen horumar ay naga samaysteen ilaa xataa qayuun haddaad storygooda haysaan ay la yidhaaho innaga inagu daba noolaan jiray waagi hore Soomaali ah ayaa hadda inoo adeegsaday inay cagaha dhulka inooga qaadan oo weliba aynu qoorta inaga guraan waxaasina waxa weeyaan waa isku halayn weeyaan Soomaali way dayacan tahay wuxuu hadla ma leh wax ka daba tagaya ma leh wax dacwad u furaya ma leh adduunyada kama dhicin dal iyo dibad arag gaale iyo arag islaam 200 oo qof oo islaam oo hal mar bila sabab qorta loo gooyaa ma dhicin caalamka Allah yaabay gaalada waa la yaabto tiri waxa dhacay hay xataa looyirowdooda ma haysano okay xukunka waaba dhacay dadkana waa bedelis haddana looyirodooda ma haysano xaq waxay leeyihiin wadankoodii hooyo lagu xukumo lala socdo xaaladooda la ogaado in loo hadlo looyiro loo sameeyo sharciga baa baneeyay nimanka carabta inay iska tagaan gabdhaha Soomaalida qoorta laga guro keebaa baneeyay sharci ma banay laakiin Soomaalida ka arkay inaga islayna isku jeedna inaga tafaraaruq iyo qabyaalad iyo inagu isku jeedno baa inooga faa'iideystay Soomaaliya waa arinta kaliya iga yaabsay oo dhagaha aan faraha galiyay oo aan seexan waay ladi weeye فهمت قف كستو Soomaali dhiig lana tan uma dul qaadanayo wax ka hadana malihin Ilaahay subhanahu wa ta'ala dawladan dad ka hadla weyday dadkeedo saa loo leynayo oo dhalinyaradeedii reerada soo kacday wadanka qoorta laga gurayo oo wadanka ay nafta moodeen intay taageen saan qoorta laga gurayo ka hadla weyday dawlad maaha waa sheegato afka baarkiisa weeye dawlad ma jirto maamul goboleed ma jiraan Soomaaliya waxay ma jiraan inay istilaan qorta iska gooyaan isqashaan qabyaalad silic saxariir Soomaali ku noolaadaan baa la yiri habeen saa isaga socdo sida daadka saa isaga socdo madaxweyne kastoo yimaada isagoo Afrika weyn buu ka taga oo maartay tanka ka dhaca 5 sano kii loo dhiibaba isagoo aad moodaa afar habeen soo joogin buu xilkiba ka dhamaanaya ma garanaysaa mid wuxuu qabtay oo waxna badbaadiyeen oo deel sheeg karo oo maartay waa la isdhaadhaaba waa la kala fiicay laakiin xasan sheekh wax kaliita waligay walay ma arag nolosheeda ma arag markii hore aan lagu bartay doorkii hore ku bartay walay doorkii dambe uma soo dhaweyn waayo waxaan ognahay wuxuu taray qof aad soo baramayso mar hore aad aragtay wuxuu qabanayo oo aad arkaysid maxaad ka celinaysaa markaas wadankeena markaas oo afka u dhacay rurada doonaysa markaas afka u dhacay fahmaysa أنا قبيلة ما قان قبيلتنا كما شكايو قبيلة كما شكايو لكن Soomaali لما كشكايو ما قرنسا والله وحنا وحماها وحكى وقصي درا gabadhan Soomaaliyeed ee ku nool Galgaduud gobolka Dhuusamareeb ku nool magaalada Dhuusamareeb ee Galgaduud bay ku nooshay ee ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee askariyada ee dishay walaasheedu aabaheed dhalay waan hooyada dhalay oo ku tala gashay reerkooda dhanba inay layso taasina waa mid shaqadan waa shaqo iga yaabisay Soomaali dil aan dhamaanay iyo xasuuq aan dhamaanay iyo dad aan dhamaanay iyo dhiig aan dhamaanay goormeen waxa talow Soomaali iska deynaysa faraha ay ka qaadaysaayo aynu intaan ka farxalano dhulkeena ammaan ugu seexayno
lama garanayo 35 sano go Soomaali isku haya wixii adduunka yeelay hanti wixii adduunka taalayna dawladda waa laqdo adduunka siisay ma fahanteen dhalinyarada markay baahi laysay bay wadanka ka qaxeen waxna waa la laayay waxna waa carareen waa la laayay oo kuwaas wadanka naf moodeen oo u kaceynayeen nolol dhaanta ka raadso ay qoorta ka gurayaan ee wuxuu hadina waayay subhanallah ilaahay subhanahu wa ta'ala Soomaaliya soo hadeeyay gabadha tani way xanuunsatay guriga deganeed walaasheed ee qorta ka goysay guriga deganeed haye walaasheed shaqadii hadhow wadagaysan doontaa waatan waxay leeyihiin walaasheed way xanuunsatay taa guriga le way xanuunsatay walaasheed oo kale waa bixid dhalay oo ay wada socdaan oo deel isu tago waxa la wada cuno oo la isjecel yahay waxa fad kala degan bay telefoon u dirta waxay tuwal baahi bay dishay waxa la aan bay hayso waxba ma karsan kareen lacag way lahayd laakiin xoog ma hayo amal waa xanuunsanayaa tabcaan baanahay indhowda xama cunin waxaan rabaa inaad caawisid oo ii timaado cunto ii karisid haye bay ku tiri dhul baa la isu raacay waa la israacay meelaha la tagay waa la israacay adeeg bay la soo iibisay dukaan bay tagtay gabadhan wax dilaysa dukaanka markay tagtay walaasheed markii u horeysay waxay doontaa li baastoolad ee dadka kala badh ay ku layso hooyadeed waxa dhashay ama waxa ay bixid dhalay nus bay rabtay in reer layso oo baastoolad ay ku layso walaalkeed bay u tagtay waxay ku tiri warsi baastooladaadii oo ay baastoolad ku ogeen walaalkeed wuxuu ku yiri baastooladi ma taalo way iga maqan tahay isaga laftigiisa ku dhufan lahayd baa haduu markay siiyo marka dukaan halkan intay sii martay midi inta laga iibsatay ya sayna leeyihiin midi inta laga iibsatay baystiyaan laga shakay oo loorana midida kaliya maxad ku faraysaa basashi bay iibisay basal say isaga dhigto mar casho sameynaysa gelin dambana way idbaalay galab bay hay basashi markay iibsay walaasheedna way soo socotaa oo telefoon bay u dirtay walaasheed waa timi guriga bay hore soo gashay salaan kadib oo maanta dhan xitaa la isleeyay waxa la isla socday walaasheed ka jaddi bay gashay qadadii bay karinaysaa dabkii bay shidaatayo basashi iyo wixii la soo gaday iyadoo googoynaysa bay si yar mididii oo meelahan taalintay qaaday walaasheed 9 jeer qorta iyo meel bay ka geysay walaasheed waa googoys midid meel baa la dhacdo gabadha way kaga tuurto way dhimatay ya walaasheed noo raysay bay ku dhimatay waxa la wax ugu dhimatay ma jira wax ka dhaxeeyay oo waraagayna ma jiraan ilaahay subhanahu wa ta'ala ajasheed marka dhamaatay tana ajasheed loo saaray inay nafta iyada ku goysanta ugu dambaysa Soomaali inta dhaafin ma hadalkayga intaas ku soo gabagabeynayay ilaahay Soomaali ha isu soo sakhiro ilaahay Soomaali ha asturo waxaan islaynaya iyo waxaan wax boobaya iyo waxaan wax dhacaya iyo waxaan wax dilaya iyo waxaan wax wada iyo waxaan xaqabyaaladeenaya Allah ummadda islaamka ka soo qabto inta xunna ilaahay hay naga dhameeyo ma garanaysaa Soomaali baad oo hoogtay qaran jabay bay noqonay qarankeena wanaagsan ilaahay inoo soo celiyo subhanahu wa ta'ala ajiib intaas wallahi dhaafin kar lahay intaas idinkaga tagaya salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh subscribe iyo share iyo like comment insha Allah idinko maadsan meel kasta joogtaan Soomaali weyn hadlay salaamu alaykum wiilka weyn cidda weyn hooyada cidda kala dhashay intaas ay noo sheegto gabadha iyo wiilka ay leedahay waa dila hooyadii dhashay iyo wiilka iyo gabadha ay rabtay disha targetka goobaadna wuxuu ahaay inay disho wiilka boradka war cusub ayaa ka soo kordhay gabadhii magaalada Gurceel ku dishay walaasheed ee tooreyda nafta uga qaaday waxaana la ogaaday in intaysan dilin gabadha ay bistoolad raadsanaysay sidoo kalena ay rabtay inay disho xubno kamid ah qoyskeeda sida islaan uu qabay aabaheed iyo wiilka curadka u ah ee iyada la dhashay hadaba xubin kamid ah qoyska ayaa bixiyay xog sir ah oo ku saabsan dilka gabadha ay ku dishay walaasheed sababaha keenay iyo sidii ay wax u dhaceen iyo sidoo kale dadkii kale ay dil rabtay hadaba maxay tahay sababta laba walaalo ah ay isu dilaan walaasheed oo waliba la dhalatay oo caawinaysa iyadoo xanuunsan oo digsiga ay cashada ugu karinayso dabka saaran ay iyadu dishay